madaxweyne dani waxaan ku weydiinayaa shahaadada xawar laga bixinayaa rabnaa inaan doonano ma aadi karnaa madaxweyne maxaysan noo taraysaa shahaado xamar laga bixiyo mustaqbalkiina kuma xirna taas ay inii sheegaya anaa inii garanti gareynayna waxaa tiri madaxweyne shahaadada xamar laga bixiyo suuqa bakaaraha lagu iibiyaa guriga bariis miya iyo dhar iyo kaba iyo marka lagu gadayo suuqa bakaaraha madaxweyne maadan xishoonayn bal hadalkaaga gadaal u dhageyso shahaadooyinka hadda xamar waa laga bixiyaa la yiraahdaa ee suuqyada bakaaraha xamar lagu gado waa ceeb in dawlad qof mas'uul ah inuu waxaas oo kale meel la yimaado wasiir goodax barre warqad buu ku soo qoray oo uu ku leeyahay ardayda reer Puntland waa inay xamar yimaadaan si ay shahaadada u qaataan maxaa ka leedahay marka waa ku ogaa waa madax adag tahay niyahow reer bani Israa'iil baa ka soo jeedaay dadka noocaas oo kale in loo jawaabana ma mudna xaqiiqada marka loo hadlo madaxweyne horta shahaadada macnaheeda noo sheeg waxaanba u malaynayaa warqadda ee foorta iyo shahaadada inaadan bakala aqoon dad waaweyn baan nahay maanta oo dhan baan qorraxda ku taagnay bal horta aan ku dhageysanne noo sheeg maxaad ka aaminsan tahay shahaado maxaysa tahay noo macnee arrinta ku saabsan shahaado sideedaba waxaan fiicnaan lahayd inkastoo aan ka xumaa inaan halkoo kale ku sharxo waa aqoonsasho ardaygaasi inuu fasalkaas imtixaan u fariistay muddadaasna uu soo dhiganayay macno kale oo ay leedahay ma leh alla madaxweyne been badanida oo haddama waxaana leedahay wax ay joornaalka caadiga ay dhaanto ma lahan waayaha midda qaranka maxaad ka aaminsan tahay noo macnee ayadana waxaan la leeyahay shahaadada qaranka iyo wax ka jira ma jiraan wax qaran uu bixiyo uu leeyahay oo dadkoo dhan ka dhaxeeya baasaboorka ka jira madaxweyne inaana baabi'isaan rabtaa hadda dawladdu waxay tiri idinma aqoonsanayno haddiina shahaadada xamar ka soo doonan marka ma garow waa nagu ceshanaysaa madaxweyne ma mustaqbal la'aan baa na dhigaysaa annagoo og ilmahaaga inay yurub ku raaxaysanayaan dawladda hadda waxay tiri wasiirka waxbarashada idin aqoonsan mayna bal ka warran hadday Puntland maamulkeeda waxa ay tiraahdo waxaas waa waxaas ee dawladda federaalka sheeganaysa leedahay ma in aqoonsanin ma haddaan annagu fiirin waxaa halkaa ka dhadhamaya nidaamka ah dalka in hal meel looga taliyo alla niyahow madaxweyne ka indha adag soo Puntland ba ma soo marin ma garow waa marka Soomaaliya looga taliyo haddaan Muqdisho looga talin in lagu taliyo maxaa u diidaysaa soo state madaxweyne kama tihid Puntland la yiraahdo state walba shu'uuntiisa isaga u madax bannaan inuu maamusho dastuurkaana faraya waayahay daniyow indha adayga ku soco dadku waa ka aqli yar yahay layma xukumi karo layma hadli karo shahaadada Cabdulla Sideeye ma doona ka dhaan midda garow dabakaayadeeda lagu daabaco doonta ilmahaygu Yurub ha raaxaystaan adeer annagu waa ku ognaha aan ka gudubna midda waxbarashada iyo aqliga iyo waxa aa wado amniga maalmahan oo dhan waxa laga qunuudahay boosaaso masaajidada inta lagu yaacay baa Ilaahay la baryahay amni in Ilaahay la helo naf iyo nolol waa laga tagay maxaa ka leedahay arrinta marka maadaama la qunuuday oo amni darteed loo qunuuday waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisa laga rabaa kow warkii hore war soo dhaaf awalan yaabahay waraysiga dani inaan lib ka keenay madaxweyne waxa hadda leedahay yaan la tukan oo yaan la qunuudin oo yaa Ilaahay la baryin miyaa leedahay meel walba laga qunuuday habeen walba la tukadaa salaada Ilaahay ama aan cabsi u qunuudno ama aan cilmi u qunuudno ama aan nabad u qunuudno ama aan cibaado u qunuudno wallahi habeen walbaan qunuudnaa kaala adiga inta masaajidada noogu soo gasho yaan la qunuudin waa ka suurtooda waa ku ognaa annaga daniyo waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona wallahi inaana kaligay qaadayn iyo billaahi mas'uuliyadda maxaa isaaray Puntland adigu ma jawaan baa tahay adiga madaxweynihii waa wada qaadaynaa wixii meesha ka dhaca mana aamusahayo annaga indhaha noo shidanaysaa niyahow reer bani Israa'iil baa isla nahay Quraysh marka saartayna waabsata annaga warniyow dadkan u bal xooftayna niyow annaga isma bay xoofteen karna niyow naga daa dani waa isna qaanaa niyow wax aan ka aqrisanayna haba yaraatee ma aha wax aad daldalaysan niyow dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu aadimo adeero waabsiga iga daa meeshaan wax dawlad la yiraahdo kama jidee waa maamul Puntland la yiraahdo afar nin oo daarooda ku heshiisay haddaan isfahmi weynana waa kala tagaynaa ma annaga isku bal xooftayna daniyow waa isna qaanaaye ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayay mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowladdan ay dooratay in aan ku dhaqmo
madaxweyne maxaa kaa siiya cuqdad nafsiga kaa buuxa muxuu yahay anigu su'aal baan ku weydiiyey maxay tahay la ima cabsiin kara iyo la ima tilmaami kara iyo dawladnimo la ima sheeg waxaas miyaan ka wada hadalna adeer uga cali horta candhuufta iga daa sida rati qooqanaha ii ubrine inaa carartaa rabtaa waa ku ogahaye wallahi inaa carartaa rabtaa haye waa carara soo ma jeedaan gudoomiye madaxweynaha celi madaxweynaha annagu su'aalaheena inaa weydiino maahan kitaabka jaamcu sabarta ka dhaqaaqi karin xoolo miyaan nahay saakan soo jarmaadna inaan su'aala weydiinaan dani ugu yeerna celi waa ka afar wiil oo fatashaariyaal wata geesaha iska mariye ma bixi karo gudoomiye irida ka istaaga wallahi hadii kala Puntland waa lagu kala dareeraya lagu kala wadiyo Puntland idinkuna sheergareeya laba qof oo isku dhagan iyo qof lagu dhagan yahay waxaan ahayba ma quudataan ruufiyaanatiin sheergareeya oo dani gaarsiiya caawa qosala la seexan waaye qaladkiisana ha arkeen